munaasabadan waxaa ka horeysay ayadoo riya ah oo halkaan aan mari jirnay waxaa la dhihi jiray xaruntii hore gargaarka degdega ah ee isbitaalkan uu lahaa waqtigii hore brutto scorso aan yiri aftalyaaniga dufla aad u yaqaan oo malayna aad u burbursaneed falxumeed dowladda qatar ayaa waxay inooga dhistay halkaan xarun lagu daaweeyo nafaqa darida daran waa ku calaacalnay in meeshaan ay u baahan tahay dhismo emergency degdeg ah waxaan maareynaynay xaaladaha degdega ah maalin walbana maareynaa oo bukaanadayna helnaa isbitaalkaana meeshaan waxay ahaan jirta meel ku astaysan gurmadka degdega ah ka hor xataa intaan xornimada qaadanin riyadaas oo ay noo rumeeyeen walaalaheen qadar uu noo dhagax dhigay wasiir cali xaaji runtii maanta ayay waxay u hirgishay sidii aan filanaynay si ka badan lisagama sheekeynayo baahida loo qabo daaweyn rasmi ah oo qiimaysan oo cilmiyeysan ee u baahan yihiin dadka ay la soo gudboonaadaan xaaladaha degdega ah hadday ahaan lahayd shil baabuur shil bajaaj dhaawac qarax iyo xaaladaha degdega ee caafimaadka ee cudurrada raaga ay keenaan ee bani aadamka soo waajaho xarun lagu maareyn lahayd way jiraan isbitaallo way ku yaalaan magaalada laakiin xaruntan waa xarun laga soo bilaabo habdhismeedkeeda iyo qaabka loo dhisay loo qalabeeyey waa mid loogu talagalay inuusan insaanka fursad ka dhumin waqti ka dhumin waana sida loogu bixiyey xarun degdeg ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sideeda ugu shaqeyno waxaan rabaa inaan halkaan aad ugu mahadceliyo wasiirkayga iyo wasiiru dowlaha oo hogaamin suuban oo adkaysi ku salaysan nagu hago na kor joogay waxaa idin hor yaala 2024kii waxqabadkii isbitaalka xaaladda ugu adkeyd asoo isbitaalka ku jiray waaba dhiman doonaan isbitaalka waa la xiri doonaa darbigay ku tageen horta wasiir dowlad geesinimadiina ku soo gaarnay aan walibana xarun casri ah ku furnay aan 124,000 oo qof oo Soomaaliyeed ku daaweynay waana sii wadaynaa commitmentigaas insha Allah tacaala isbitaalka Martiini waxaa ka shaqeeya howlwadeen kaadiro qaarkood halkan fadhiyaan qaarna aan jeclahay inaan meel walba iyo goob walba ugu qareemo waa dad laf dhabar u ah adeeg bixinta caafimaadka waa dad bishahaadada WHO iyo bishahaadada asxaab badan oo imaaday tusaale u ah gigsiimada waa dad naftooda ka hormariya oo adeegida bulshadooda mushaar la'aan iyo duruuf adag shaqeeya intooda badan haddana diyaar u ah oo commitmentiga galay oo aqoontooda sii kordhinaya oo qareemidaas aan ogahay wasiiru dowlaha agaasimaha guud inay igaga daran yihiin igaga xanuun badan yihiin haddana waxaan u baahannahay inaan anigana aan mar kasta ku daro xaruntan waana la cabsiinayay timirtii hore dab loo waa oo shaqadii hore baad shidaal la'aan ka cabanayseen iskuma xirna oo reer Martiin waxaa dabeecad u ah qofkii soo muta ma ku hungooba dii la yiraahdo si kasta oo duruuf u jirto waxay xaruntan kaga duwanaan doontaa wasiir dadka xarumaha kale kaadirka ka shaqeynaya waa Soomaali 100% waana dad wada takhasusyo kala duwan leh waxa xaruntan ay leedahay protocol iyo habraac maareyn min daawo ilaa qalliin ilaa handalgareynta bukaanka ah waxaa rabnaa inaan tusaale u noqono inaan insaanka dhib soo gaaray emergency-ga laga dhumin golden hours-ka nugulana xisaabtantiin haddii ilaa yiraahdo boorka cusub ee wasiirka magacaabay ee dhig cusub isbitaalka geliyey Dr. Cabdirasaaq kamid yahay iyo dad badan aad rabaa inaan ugu mahadceliyo fursadan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto wasiir agaasimaha yaasha isbitaalada saaxiibaday ee halkan fadhiya ee aan isku doontanahay ee asgarabkanahay inaan u mahadceliyo ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan qadar alkhayri aad iyo aad ugu mahadceliyo garab istaagooda macnawiga ah garab istaagooda dhismahan ah garab istaagooda markii garab la waaye ah abaala u hayna runtii qadar alkhayri markasto ay xaaladda meel xun uga jirto oo dadka sokeey iyo shisheeyaba heelkii la filayay laga waayo meel bay nooga soo dhax baxdaa niyadda baa waxaan ku dhisanaa muddo sii jiritaankooda kulligood shakhsi howlwadeenadooda nutrition projects-iyana la dhameeyeen dhismahan daryeelkooda ay nala fuliyeen waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo qadar alkhayri waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo professor Dufle oo aan 24 report-keenana ku xusnay afhayeenka isbitaalladu ahaa keenna kaliya ma aha banaadir Martiini la Sareeti meel walbo baarlamaanka iyo miisaaniyadda korgeeyay
codkiisa dheeraana waa rabaa inaan aad ugu mahadceliyo.